Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhakhayrta walaalaha afka Soomaaliga ama luqadda Soomaaliga ku hadasha waxaan halkan caawa niga soo gudbinayaa anigoo Axmed ah sidee loo sameeyaa website-ka amba habkee loo dhisaa website kolka maxaad u baahan tahay website haddaad inaad dhisto amba aad samaysa doonayso waxaad u baahan tahay laba qaybood oo kale kow waxaad u baahan tahay domain name oo ah magaca website-ka inaad u bixisa ah laba waxaad u baahan tahay web hosting meeshii aad ku shubi lahayd aad ku store galayn lahayd aad wax ku haysan lahayd haddii aan mesel soo qaato halkani waxa weeyaan hostinku alaab baad soo gadatay alaab baad soo iibsatay meel aad dhigataad u baahantay maqsin baad u baahantay aad ku xidho kolka kani waa makhaasiinkii aad alaabta ku xiraysan lahayd amba storekii aad wax alla wixii aad qortay hadday video tahay hadday cod tahay hadday qoraal tahay meeshii ay ku hayn lahayd weeyaan domain name-kuna waa magacii marka labada aad ka soo gudubto haddana waxaad usii kala baahan maxaan samayn doonaa kow waxaan samayn sidee aad si aad u dhisato website waxaad u baahan tahay afartan soo socoto oo kala ah kow domain name horta waa inaad iibsato asab wax kastiba waa inaad domain name ka iibsato wax yar baa ku bixi sida loo iibsado wax oo dhan waan ogaan doonaa laba waxaad u baahan kolka domain name ka iibsato waxaad u baahan doontaa inaad ku subto install wordpress oo ah waxyaabaha boqolkiiba 30 ayaa la yidhaahdaa iyo boqolkiiba 40 inuu qoro waxyaabaha website-ka lagu dhiso kana ugu fududna weeyaan dhowr nooc baa jira laakiin wordpress baan isticmaalaynaa hadda waxaa kaloo ku xigi doona haddaba inaa haddana theme beri hore waxaa la isticmaali jiray waa adkayd html iyo coding aad u samaysay iyo wax badan oo noocaayo waqti dheer la gelinayay inaad adigu samayso ayaa jiraysa laakiin maanta waa laga baxay template ayaa jira oo iska diyaara ood ku samey kuwa lacaga iyo ku freeba intaba eed ku xidhan tahay kolka ka afraad wuxuu noqon doonaa start building website and template marka waxaan bilaabi doonaa kulanka afraad inaad samayso ood bilowdo sidaad u samayn lahayd marka daawasho wacan baan nilaahay kusoo dhawaada halkaas marka waxaan dooranaynaa web hostingkii web hostingka muxuu yahay marka host waxa weeyaan waa sanduuqii makhaasiinkii aad wax dhigan lahayd aad wax ku shuban lahayd ee wax ku kaydsan lahayd marka waxaa jirta waxaad u baahan tahay inta uu la egyahay gudihiisu inta uu qaadi karo waa kow lacagta qiimahaaga jeebkaaga inta uu la egyahay waad ku kala dooranaysaa markaas waxaan eegaynaa bal inta uu la egyahay ayaan marka galaynaa kolkaa tagno in kasoo gudubno waxaan tagaynaa next domain name ayaan tagaynaa insha allah bal aan fiirin marka hostingkii baan joognay oo waa ka web hostingkii waxaan dooranaynaa 10ka ugu fiican ee laga iibsado hostingka makhaasiinka lagu shubanayo okay 10kii baan eegaynaa 10kii baan saan dulmaynaa sidigde SiteGround muxuu yahay click baa ka siinaysaa lacagtiisu waa iska dhaafaynaa ka warqiis ma qadanay SiteGround muxuu leeyahay 30 maalmood lacag soo celinaysaa spacekiisu waa 10 gigabyte visitorka intuu leeyahay free domain name male kaasi waan ka bodaynaa hostinga muxuu yahay isagu waa 80 pound kani baan leegaynaa waa wax aad u jaban 80 pound baan leegaynaa muxuuna siinayaa 80 pounds aad buu fiican yahay waa wax qiimo jaban hadda intuu joogo waxa weeyaan one website buu leeyahay one email buu leeyahay ilaa 10 gigabyte buu waa meesha wax maraya sida uu dhimay kan naftiisa aad u raqiis ah oo isagu naftiisa uu sameynaa 2.15 bishii weeyaan unlimited accountkiis emailka aan lahayn sida meelaha bandwidthka waa meelaha maraya ama meelaha sida loo kala qaybtamo loo qaybiyo wuxuu leeyahay wordpress acceleration buu leeyahay isaga naftiisa waa kaa naftiisa aad iyo aad buu kan u fiican yahay website-ka haddii aad doonayso inaad website kale domainna kala iibiso oo hadda ku shaqaysato aad buu fiican waa unlimited halku kana hal xaba kala ah waa wax aad iyo aad u fiican okay
markan waxaan eegaynaa ambaan ogaanaynaa magacii domain nameka. Saan iisoo sheegay domain waa magacii aad jecleed businesskaagu, waxbarashada, educationka, shopkaaga, wax kastoo jeceshahay aad ku qoran lahayd. Haddii aan soo qaato mathalan magac ood leedahay waxaan sameeyaa waxbarasho haddaad soo qaadatid oo kale ood ku qortid. Horta saan iisoo sheegay bil wuxuu leeyahay kani tilmaamaya hadda bil keliya weeyaan taasi. 12 biloodna wuxuu qaatay 195 145. haddii aad qaadanayso 4 sano ayuu 80 ka dhigayaa 80 pence. sidaan iisoo sheegay waa hostinja.co.uk 80 pence wey oo u dhiganta haddii aan ido haddii ay noqoto waa 60 pound halkaad ka bixin lahayd 400 pound. 60 pound haddii aan ka sii rido adu 60 pound iska dhig. waxaan eegayaa magacii baan eegayaa magacu hadduu jiri iyo hadduu jirinba hadduu kuu shaqayn haddii kale waxaad ku ogaanaysaa halkan. mathalan barashada baan leeyahay waan eegayaa marka baadh baan leeyahay ii baadh inuu available.com baa rabtaa ma waxaad rabtaa net ma waxaad rabtaa info ma waxaad rabtaa online ma waxaad store waxaad jecesha store maxaad rabtaa seg site website space miyaad rabtaa waxaad jeceshahay baad ka dhigaysaa .com ii eeg maan leeyahay education badid iyo dowladahaas kale mahaylkan u baadhayaa magacu haddii la qaatay ku odhanayaa ma jiro wuxuu yidhi sorry domain is taking wuu diiday. okay ka bedelo net ka dhig halkuu ka yahay comkii baa la qaatay net inay badhnaantahay baa dhici karta yes wuxuu noo sheegay domain registration barashada .net 1 year free ayuu ku yidhi then 11 pound a year. okay kolkaad kaa qaadatid ayuu ku weydiinaya waxaan weeyaan haddii previousgaaga ambo datadaada ambo magacaantaada waxyaabaha inuu uu dibadda usoo bixin kolka baadhitaan sameynayo qof kale waxaa oo dhan la ogaan ayaad ku samaysanaysaa. kani waa iska free badi waxay tahay tani halkaa xidhan weeyaan hadda meesha qofku uu ku xidhan yahay weeyaan oo waxyaabaha qaarkood no safe baa ku taalla ka waa iska okay wey iska dhaafi kartaa. kani kale muxuu yidhi adu waxyaabahan aan u baahnayn waa iska baafaynaa. anyway dantaan uga lahayn waxa weeyaan halkani inaad kolkaad hostingkii baadho inaad haddana gasho magacii aad u bixin lahayd kombanigaaga inuu bannaan yahay. sidaan iisoo sheegay .com ma bannaano .net baa bannaan ayaan idhi waad ku bedelan kartaa. waxaan joogaa marka cpanelkii aan ka iibsaday ama aan ka iibsanay hostingka. marka waxaan sameynaynaa waxaan hadda isku xidhaynaa domain namekii iyo hostingkii waa kani waa hostingkii wuxuu na siiyey uu noo ogol yahay si aan softwarekii ugu shubano. marka softwarekan soo sheegay waxaan isticmaalaynaa saan hore usoo sheegay wordpress way fara badan yihiin oo waa kuwa waxyaaba fara badan baa ku jira laakiin qaar advance iyo qaar wordpress 30% websiteyada ayay isticmaalaan ilaa 40% baa la yidhaah. waxaan ku shubaynaa wordpresska ayaan ku shubaynaa marka waxaan ku shubaynaa domain namekeenii iyo ku install garaynaynaa. markaan eegno bal waxaan yeelaynaa
bacdama ay ku jirto domainno kale ama magacaan kale. Domainka aan iibsanay wuxuu ahaa tababar24.com ayaan markaa ku shubaynaa, installation ku sameynaynaa. Markaan sidaan nidhaahno aan tagno, waa kan aad arkaysid halkaa directory wax loogama baahno, halkan aan ka bedelaynaa mid kale ku jira. kolka waxaan tagaynaa anagu kii tababar24 ayaan tagaynaa. kolkaa tababar24 tagtid waxaa kuu soo baxaya halkan site nameka maxaad doonaysaa inaad ka dhigto magaciisa. waxaan ka dhig tababar 24. descriptionka maxaad ka dhigaysaa? waxaan ka dhigaynaa training leenahay. waa bedeli kartaa usernameka hodhow markaad galayso maxaad doonaysaa inaad ka dhigto. admin baan ku daysanaynaa. passwordkanan waa inaan koobiyeysan sababtoo hodhow waan bedeli doonaa insha allah. passwordkan waan bedeli karnaa hadda waan bedelin. wordpress kolkaan tagno mararka qaarkood adiga halkan ma arkaysi waa lagaa iibin. copy baan leenahay. admin tababar emailkaagaad ka dhigi kartaa halkani wax dhiba male. halka admin tababar ku taalo emailkaagaad ku bedelin doontaa. waa english luqadda doontaad ka dhiganaysaa. marka kaad rabtaa inaad ku shubto aad ku install garayso. qofba waxa uu shaqadiisa uu rabo ayeen bay noqonaysaa. waxaad eegi kartaa mid kastaba inaad aragto horta intaanad ku shubin nooca uu egyahay simkani wuxuu ekaanayaa waa ka nooca buu yahay hadda. okay kani waa halka. haddii aan ku noqono kani kalaan eegaynaa naftiisa demo baan eegaynaa isaga naftiisa nuucuu egyahay. kolkaan noocii ku cajabiye ayaad qaadanaysaa. waa kaas kana waa noocaas noocii ku cajabiye ayaad marka qaadanaysaa. haye kani marka ma ku eegnaa? waa kan kani waan ku eegaynaa marka. okay select baan leenahay kani. haddaad sii socotidna waa heli kartaa kuwa kale ayaa ku jira waad sii socon kartaa. waa kuwan way fara badan yihiin. okay kani kale bilowkiiba ka fiicnaa ka qurux badnaa. teamkan wordpresska muxuu yahay? wuxuu yahay baan eegaynaa marka. auto repair waan aragnay way isku dhadhow yihiin badi. waa kan sidan way isku dhadhow yihiin way waa adiga arkaya sawirro qurux badan sidaad doonayso websitekaad inaad ka dhigato aad ka dhiganaysaa. okay waxaan sameynay travel waan eegnay auto repair waan sameynay iyo kan inta kanna muxuu yahay? okay inaan waqtigu naga dhicin aan ku noqono marka kolkaan samaysanaa travelkii. okay marka waxaan tagaynaa dashboardkii baan joognaa. passwordkii aan marka hore waxaan sameynaynaa oo ugu horeeyo oon bedelaynaa user aan tagaynaa. admin edit baan leenahay. admin waan ka dhiganay. waxaan bedelaynaa passwordkii hoos u deg. passwordkii baan bedelaynaa change password. waxaaba hadda ku jira si aan u bedelno waxaan sameynayaa password cusub ayaan sameysanayaa marka. medium update baan leeyahay. passwordkii waan bedeshay. waxaan kalaan marka halka aan joogno waxaan sameynayaa marka oo inaan ku shubo theme. theme muxuu yahay? theme wuxuu yahay waa designka amba quruxda aad doonaysid sida uu ekaado websiteka aad dhisi doonto noocuu inuu u ekaado doonaysa designkiisa inuu ahaado doonayso. marka waxaan leeyahay art kani basiga aan iska tagaynaa. astra ayaan leenahay. waa kan kani baa noo soo baxay. install baan leenahay astra waan ku install garaynaynaa. okay activate baan leenahay. activateynaa waan install garaynay. waxaa isbedeli doonaa kii hore noocuu ahaa wuu isbedeli doonaa. haddaan tagno isbedelayaa waa kaa hadda
nooc cusub ayuu noqday. Sawirkii wixii oo dhan ayaa meesha ka baxay. Marka maxaa iga sii maqan? Waan ku noqonayaa. Waxaa iga sii maqan blacks-kii baan tagaynaa haddana. Blacks art baan leeyahay. Astra Insensia. Okay, waa adiga arkaya. Widgetkii baan hadda raadinaynaa. Waxaan qaadanaynaa tani imisa isticmaasha template-kan eegaynaa. Aad iyo aad waa ka u badan yahay. Kani baan leenahay marka install. Waa Elementor baa la yidhaha. Kaama ku shubaynaa marka. Install garaynaya. Activate baan leenahay. So marka waan install garaynay. Haddii aan ku noqdo weli ma dhanno, laakiin ha u cabsanina. Waxani muxuu yahay meesha maran my blog this side waxani waxaan kasoo saari doonaa wax aad u qurux badan, page aad u qurux badan ayaan kasoo saari doonaa. Marka waxaan tagaynaa appearance markaan tagno waxaan doonaynaa iminka template-kii aan soo download garaynay inaan kusoo shubno. Okay, template-kii baan tagaynaa waxaa noo soo baxa Elementor Beauty. Waa ka aan u baahana. Okay, Elementor baan taabanaynaa. Elementor markaan taabano waxaa noo soo baxaya template fara badan baa halkan nooga soo baxay marka. Kani Elementorada waxaa laga yaabaa inay noocyo badan bay iska leeyihiin. Qaar free qaar lacaga, nooc kastay leeyihiin. Marka inta aan jecelahay ayaan qaadanaynaa. Kani horta waad eegi. Bal eeg horta inaan jecelahay kani dawooyinka kani nooc kasta kuwaad yara fiiriso. Haddaad rabtid okay incredible business ma rabnay free baan odhanayaa balka. Okay, taas means waxaan oo dhan waa wala free. Wixii businesskii uu naga reebay. Waxaan joogaa arkaysaa free baan joogaa. All ma joogo. Okay, marka bal kani ugu horreeyaan eegaynaa hadda noocigii suu yahay suu ekaanayaa waa ka. Okay, hadduu qof doonayo inuu samaysto website wixii oo dhan iska dheh waxaad uma baahnidba ayaad marka samaysanaysaa. This is waa preview waa inta aanad weli ku shuban domain name-kaaga template-ka nooca uu ekaan doono. Waad bedeli kartaa. Hadda halkan waa kan home, about, service, project, contact, take action. Halkan aad arkaysid wixii kuu soo bixi doona saabuu noqon doonaa. Waad bedelaysaa wax dhiba male. Noocan haddaad jecel waan iska bedeli kartaa. Waxaan waa iska tuuri kartaa. Waan tuuraynaa. Halkan u samaynaa eegaynaa. Waa kani ya masha Allah. Qof kastiba suu jecel uu ka dhigayaa. Halkan maxaa soo baxay bil haddaan taabano aan eegno. Mashqani. Kolka waxaan haddii uu ku cajabiyo kolka aad aragtid inta aanad weli installation-ka samaynin ayaad iska fiirinaysaa. Marka hadda waan install garaynaa. Waan soo aragnay intaan installation ku samaynin waxa uu yahay soo eegnay. Bal aan soo install garaynaa marka. Okay, wuxuu weydiinayaa maxaad rabtaa inaad samaysato. Install requirement blocks, import content. Haddaa rabtid content-ku waa waxyaabihii ku jira sawiradii wixii oo dhan haddaa iska rabtid. Widget-ka uu wato maad rabtaa mid aad jeceshahay ku samaysa. Import dheh horta wax oo dhanba ayaan leeyahay si aan wax oo dhanba noogu install garayo. Plugins wax alla wixii uu wato dhanba noo install garaynayaa. Waxaan kolkaa ogaanaysaa nooca uu yahay. Waan iska yara sugaynaa intaa waan joojinayaa bal inta uu dhammaystirayo ku soo noqonaynaa. Marka haddii aan u soo noqonno template-kii waxaad arkaysaa hadda kani waa kii aan ku shubnay. Hadda haddii aan website-keeni u noqono tababar 24 iyo kani isku wax mida ayay noqdeen hadda. Waa kan halkan maxaa ku yaala tababar 24.com. Haddii aad u noqotid template-kii
amba kii intaan lagu shubin loogu talagalay qofku inuu ku shubtana waa same. Ka haddaad u fiirsi home baan joogaa hadda. About haddaad tagtid waa kan who we are sawirada isa u samaysan yihiin wixii oo dhan. Haddii aan service tago service nafteeda wuxuu u samaysan yahay waa ka sawiro qurux badan. Project ayaan tagayaa project sawirada ku jira iyaga naftooda iga arkaya noocyada yihiin. Kolka contactigii oo isaguna ah muhiim ah ayaa halkan ku jira waad iga arkaya. We are ready to talk laakiin waan hagaajin doonaa weli waxaa halkan male waxaa soo bixi doonaa laymankii wixii wax lagu qori lahaa. Contactiga waan bedelaynaa. Kolka waxaan tagaynaa marka edit ayaan marka tagaynaa Elementor. Edit Elementor haddaad tagtid page-kani buu kuu bedelayaa. Okay, kani buu kuu bedelayaa. Laakiin inta aan kaa gaarin waxaan u baahannahay dashboardka inaan tagno. Waa kan dashboardkii hadda waan dhamaystiranay. Home ku noqo. Iska xidh kani. Leave this page. Okay, dashboardkeeni site-ka tag. Customize. Waxay noqonaysaa hadda waxaan joognaa waa tababar waxaan joogno marka waxaan u baahannahay inaan bedelo outdoor-kan iyo waxa seen u bedeli lahayn waxaan oo dhan seen u bedeli lahayn. Okay, waxaan tagaynaa header-ka. Header-ka waxaad tagtaa site identity waa kan kani waxa weeyaan logoga. Logoga iyaga waan u tagi doonaa oo logoga sida loo free meelaha lagu samaysto. Halkan ayaan marka bedelaynaa oo ah my blog ay ku taalo. Waxaan bedelaynaa kaloo my WordPress kan waa bedelaynaa. Waxaan ka dhigaynaa marka bal site title waxaan ka dhignaa habka loo sameeyo website. Okay, display balan eegno awal ku soo bax. Okay, waa kan habka loo sameeyo ayuu soo qoray. Kani waa logogii inaa la tuuro ayuu u baahan yahay. Habka loo sameeyo website-ka. Website-ka ama websites-ka maxaa marka waa u soo baxaya. Haddii aan soo saarnayna waxaan ka saaraya waa kaas. Marka display inuu hadduu soo baxo doonayso. Okay, tagline-kaaga muxuu yahay? Waa business-kaagu magac uu yahayna muxuu noqonayaa? Waa very important inaad wixii oo dhan ku qoratid. Intaan halkaa gaarin waan noqonayaa markaa. Haddana waxaan tagayaa ugu noqdo si aan waxaan u bedelo ayaan bal tagayaa. So marka waxaan sameynay ahayd habka loo sameeyo website-ka ayaan niri. Waxaan u baahannahay hadda inaan tagno header site identity waan sameynay. Okay, tagline-ka oo magaca business-kaaga baan nirahay isaga muxuu noqonayaa? Business-kaagu muxuu yahay? Waa sida loo dhiso website-ka. Sida loo dhiso website-ka ma rabtaa inuu soo muuqdo bal fiiri halka inuu soo baxo. Okay, soo bax sida loo dhiso website-ka. Okay, taan halkaa ka noqo. Ayga maqan haan gaar la hore degida content-ka background-ka sidee doonaysan ka dhigto haddaad inaad imika background-ka aad arkaysaa yara madowaaday sidaa jecesha ka dhigaysaa background-kii ina sawirka marka hore qarinay adiga arkay wuu isbedelay background-kii clear dheh. Imika waxaa wala qarinaya sawirka picture-ka buurta unbaa ku jira inaad bedeshada doonayso sidaad bedelayso weyn. Marka waa kan website-kii aan ka bedelay habka loo sameeyo website-kan nidhi business name-ka sidee loo dhisaa website-ka.
hadda inaan bedelo haddaan doono waa ka tii blue baan ka dhigaydma blue buu noqday adiga arkaya kani blue buu noqday kani kale kuma jirin kolka si aad u bedesho waa inaan tagno haddana ku noqonayna mar labaad okay waxaan joognaa marka waxaan jecelahay iminka inaan haddana bedelo bal isku dayno typography-gaan tagaynaa typography-gu muxuu yahay waxa weeye qoraalkani sidii aan uba bedeli lahayn aan ugu qurxin lahayn ayaa nafteeda garayna inagu noqon color baa jira colorkii base color waa kuwan kani redka links colorka inuu yahay waxoo dhan marka waxaan u noqonaynaa intaan soo gaadhin colorka typography kolkaan tagno headingkan ayaan weli ku jirnaa headingkaan tagaynaa heading kolkaan tagno hadda waa kan maxaa ku qoran hadda wax weyn buu qoran yahay oo marka horaan soo aragnay waxaan ka dhigaynaa marka waan yar inaad yararaysa jeceshahay okay waxaan leenahay waa kan bold buu yidhi okay uppercase buu hadda joogaa waa weynka leetaradu capitalize oo ah wuxuu isku bedelayaa markaa fiiriya xaraf kasta ka koowaad ayuu capital ka dhigay ka labaadna wuxuu ka dhigay uu yaryarayay laakiin haddii capitalize aan ka bedelo lower case idhaa gebigooga muxuu ka wada dhigayaa yaraa uu wala yaryarayay upper case haddaan idhaa automatically waxaad qortay un baan isagaba bedelay taas waa halka okay kani ayaan bedelayaa haddana waxaan ka bedelayaa inuu a wonderful gift siduu ugu qoran yahay inaan bedelo oo fontiga amba qoraalka aan ugu qoran yahay ka dhigo waa ka waad bedeli kartaa size-ka waad yareyn kartaa waa ka inta uu yahay isku soo yaraanaya xaggan kale haddaan sii socdo weight-ka okay uppercase buu yahay isaga naftiisa maan ka dhigna capitalize okay waa ka xaraf koowaad ayuu ka dhigay capital kuwa kalena caadi buu ka dhigay xarafka koowaad oo saa ayuu isaguna u wadaa paste typography-gan haddana eegna muxuu yahay isaguna waa noocyada size-ka intaad ka dhigayso wixii iskaga bax kamaan kaga baxaynaa waxaan u wareegaynaa dhisitaankii website-kii waxaana ka bedelo aan sawiraan leenahay anagu soo gasho waxaan iloobaa jira logoga kama aan saarin outdoorkii baa ku jira si aan logo inaniga kama haysana anagu uga saarno ayaa bal horta ku noqonayaa waxaan logoga ayaan ka saarayaa headingkaan tagayaa site identitygaan tagayaa remove baan leh waan ka saaray hadda soo ma kanina colorkan waa inaan ku noqdo oon bedelo okay waxaan joognaa marka colorkii site title-ka aan ku noqonaynaa kani ma ahayn wuxuu ahaa overinka ahaa blue baan ka dhignay colorkan kolka saa u taabatay eeg blue buu noqonayaa inaan ku bedelo color kale soo baxay sababtoo kaasi ma soo baxayo bal halkan gee hadda red okay ayuu noqday red waxaa ka dhig siduu hadda okay kaasaan ku daynaynaa isaga iska xidh marka waan bedelay wuxuu yahay haddii aan mar labaad ku celiyo kolkaad taabato hover waa kolkaad mouse-ka dul dhigto ee dul joogsato wuu isbedelayaa ka red buu noqonayaa si uu ugu noqdo weeyaan taas halkaan waan ka noqonay iminka haddii aad eegtid website-kii oo arkaysaa waxaan ka tuuray logogii oo adiga arkaya kuwani baan hadda markaa dhisi doonaa waan hagaajin doonaa insha allah waxaan samaynaa hadda logo inaan samaysan weyn hadda waan dhammaynay titlekii business namekii oo taglinekii logo waan marka samaysanaa
logoga saan u samaysan lahayd waxaa jira websiteyaal free websiteyaasha freegii ayaan bal tagaynaa marka waan ka samaysanaynaa waxaa la yidhaha logo maker email.com iska jir .com baad leedahay tani waa haddaad u baahantay sida loo sameeyo halka waad iska dhaafaysaa muxuu ku saabsan yahay marka websitekeenu wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan tababar amba training marka waxaad jeceshahay training ayaad samayn kartaa waxaad jeceshahay training okay bacdama aan baranayno website sida loo dhiso net websiteku waa wax ballaaran waa shabakada aad arkaysid ee adduunyada meel kasta lagala soo marka muxuu samaynayaa dhinaca doonta u rogaysaa kani waa kan haddaad rabtid sidaad u joojin sidaad jeceshahay waad yaraysan kartaa tagiskii ayaad soo qaadanaysaa waxaa ugu daran waxaan leenahay 420 ayaan leenahay waan qaadaynaa waan isku geynay labadan tabar 420 ayaan leenahay kalarka inaan bedilo isagana ka dhig waa ka madow waan ka dhignay haddaad doonto kuba nooca jecesho ka dhigaysaa soo yare si uu noogu noqdo kalarkani bedel haddaad rabtid oo maxaa ka dhigaa tani waxaan u baahnaa kalarka kani baan u baahnaa kalar kuma fiicni kaladooda siday kala yihiin ka dhigayaa kanina ka marka waxaan sameynayaa iyaga ayaan hadda isku qabanayaa marka waan diyaarinay logogii aan u baahnayn waan diyaarinay marka waxaan sameynayaa waa save logo wuxuu ku leeyahay lacag lakin you don't need no thanks waan soo download garaysanay logogii waan samaysanay waxaan ku noqonaynaa sidaan logogii u keeni lahayn halkan ku noqonay hay'adda markasta waa inaad ku noqotid waa kan halkan change waan leenahay upload kana soo upload kusoo shubaynaa horta ayaan samaysanay okay waan leeyahay waxaad samayn kartaa haddii uu yiraahdo inaad bedeli karto okay bal muxuu sameyn horta ku eegaynaa waan soo shubanay logo waa kan soo shub halkan aan ku kala taabtay ahayd yes ma crop baad rabtaa waan yareyn karaa si uu sii weynaanin soo yare isla ekaado okay crop dheh waa inuu wax ka bedelay marka publish dheh wixii kala eegaynaa hadda marka waxaa noogu jira logogii baa noogu jira haye logogii marka waa inuu soo baxo waka maxaa dhacay logogii madow baan ka dhigay sababta waxa weeyaan hadda meesha ay ka taagan tahay isagii backgroundkii ayaa madow waa inaan caddaan ka dhigo sidan halkan oo kale si u muuqdo taas ayaa jirta waan bedelan doonaa insha allah laakiin iminka waxaan ku noqonaynaa cashirkeenii ayaan sii wadanaynaa logoga waxay ahayd tani sida inaan logogan anagu samaysan karno oo soo gelin karno oon baan wadan lahay haddii aan ku noqdo website kusii noqo backgroundkiisa ku eegayaa inaan sameeyo halkaa madowga ka yahay inaan caddaan ka soo dhigo ayaan isku dayayaa haddana mar laba waxaan soo bedelay logogii oon caddaan ka soo dhigay logogii ayaan marka kii caddaa ayaan soo qaadanayaa upload baan leeyahay feerista upload desktop ku yaalay waa kan ka damba ayuu ahaa select dheh okay aan soo download gariyay waxaa ku kala duwan yahay kan waa kana caddaan buu hadda yahay select dheh kaa soo bixi doonaba crop dheh
prefect waa kaa soo baxay hadda si fiican soo baxay publishne iska xidh waan yareeyey oo aad baan u yareeyey laakiin qofku waxay ku caddaynaysaa inuu ka dhigan karo nooca uu rabo marka waan soo sameynay logo waan soo sameynay taglinekii amba magacii waan soo bedelay marka waxaan rabnaa fontkan sidaan uga bedeli lahayn intan sawiradan marka maxaan sameynaa kulkaa ka samaystay edit with elementor baan taabanaynaa waa template-ka aan isticmaalaynay ayaan marka tagaynaa template-kii ma tagnay waxaan marka waa kan haddii aad u baahantay inaad wax bedesho waa kan inaad image haddaad doonayso video haddaad u baahantay buttonka waa kani buttonkan weeyaan haddii inaad kala qaybiso doonayso google mapka waxa jecesha oo dhan baa ku samayn kartaa halkan tagskii text okay مثلا halkan aan rabaa halkan aan bedelaan rabaa waa kan halkanna waan ka bedeli karaa may halkanna waan ka bedeli karaa oo xaggan dhinaca bidcada xigta ayaan taabanayaa oon leeyahay baro sida loo dhiso website okay hadda uu waaweyn yahay waxuu sheegayaa headline marka si aad u bedesho amba u noqdo waa inaad style tagta haddana style baan tagaynaa waxaan tagaynaa style markaan tagno photography baan tagaynaa halkani baan kaga bedelaynaa weightka inta uu yahay iyo inta aad doonaysid wax oo dhanba ayaad ka samaynaysaa site photography haye waa kan size arkaysaa waa ka wuu yaraaday marka hore xoog buu weynaa haddaad doonto halkan aad ka bedelaysaa sida jeceshahay oo intaad doonto ka dhiganaysaa sidaad jeceshahay halkan aad ka bedelaysaa waxaad kala samaynaysaa uppercase buu yahay soo maaha uppercase xarfaha keliya ka dhig may waxaa ka dhigtaa capital iska dhig si hadda sheegayo kale oo soo yaraynayaa styleka aad doonaysid normal miyaad doonaysaa ma italic baad doonaysaa waa wira sameeyaa may waxaad doonaysaa nooc kasta doonayso halkan aad ka bedelaysaa decorationka then underline miyaad doonaysaa waka underline buu sameyn line buu kusoo tuminayaa laakiin halkaa bedelo waxaa kaloo doonaysaa xagga sare ka dhigto may defaultan ku daynaynaa marka line weight muxuu yahay marka waa inta isku jijiro bal hadda fiirina line weightka naftiisa wuu ballaadhay wuu yaraanayaa haddana letter spacekii baan tagaynaa letter spaceki muxuu sameynaya marka letteradii spacekii sida jecesha isku dhowey wuu yara kala durkinayaa nooca jecesha ayuu ka dhigayaa ka taana halkaa bay noqonaysaa publish baan leenahay okay waan samaynay taa wuu diyaariyey kani baan haddana tagaynaa qaybtan sare oo explode world ayaan haddana tagaynaa sidaan kuu sheegay xaggan waa ka bedeli kartaa waad samayn kartaa oo halka aad ka samayn kartaa laakiinse waxaad intuu tiltib dhinaca bidixdaada aan ka bedeli xaggan aad samaynaysaa marka min soo baxay waxaad leedahay halkani okay muro wayga loo sameeyo website-ka ay hadda taama ka dhig baro sida loo dhiso waa nini xaggan waa ka dhig okay iyada nafteeda maxaad odhan kartaa waa nini style ka tagaysaa style kolka tagtid tagaysaa text shadow maadii hor ma soo marin bal muxuu yahay waxaan yara eegna tani muxuu samaynayaa horizontalka siduu u samaynayo iyo siduu u samaynayo wuu ka wacday normal ka dhig okay typographiga haddaan u noqono sizekii inta uu yahay yaan eegina haddana aad buu yaraaday oo weyneyn kartaa waasaan ku sheegay 27 okay halka ku dayn kana kasii yaraado id odhan kartaa let space ma rabtaa inaad ku dhaweyso mise inaad kala durkiso yaro kala durkinaysaa aad jeceshahay kani
inaa bedelin noqonaysa uu waxoogaa ka yaraado ka text colorka ayaan kani yara haddaad u baahantay inaad badiso red baa ka dhigaysaa blue baa ka dhigaysaa blue waxaa ka dhigaynaa dhowba qofku nooca uu jecel yahay ayuu ka dhigayaa taasna halkaa baan ku dhaafayaa stylekii baan ku noqday kani baan joogsanayaa marka stylkiisa waxaan ka dhigaa yidhi okay halkaas ayaan iyadana ku dhaafaynaa waxaan hadda sameynaynaa sidaan u sameyn lahayn buttonkan conaation haddaad picture u baahan tahay inaad dhigto linekan yara halkan ku jira sida waxaan oo dhan aad bedeli lahayd baan balaad sameyn inta hore waxaan sameynaa kan linekan haddaan galno laba qaybood baa samayn kartaa click inaad tirahdo iyo inaad right click tirahdo edit taabato intaba way ku bannaan tahay marka waxaad samayn kartaa content horta tagaynaa ma tagnay iminka waxba kuma xidhno laakiin waxaan jecel lahay inaan ku xidhno about linkska samayno si degdeg u samaynaa about kolkaan qoro waa ka about ba soo baxaya home page midka jecel ku baxaysaa xagga qoraadka layer model ku taalo inaan ku qorno about weeyaan as aad ku qorto soo bedeli lahayd taasina weeyaan picture haddaad doonayso oo horteeda waxaad samayn kartaa halkan ay taabanaysaa icon degdega ayaan soo qaadanaynaa si aan ugu sawir u gelino photo u gelino iska soo qaado waxaan waa kolkaa iminka wuxuu ka yaalaa xagga hore ayuu ka yaalaa baad cashirka hortiisu ka yaalaa haddaad gadaalna ka dhigta doonayso after baad tamanaysaa waa ka gadaal buu ka maraya inta u jira haddaad rabto spaceka inta u dhaxaysa iyo isagii cashirka waad kala durkin kartaa in badan waa isku soo dhaweyn kartaa oo afka isku saari kartaa laakiin waxaa ugu fiican weyn space yar oo intaaya ugu fiican taas ayaan kaga gudbaynaa wax kale oon ku darayno waxaa xagga styleka haddaan u waxano hadda waa kan colorkiisii haddaan bedelo rabno waxaan sameynaynaa about aska lower case buu hadda qoran yahay ku bedeli karnaa inuu capital sameeyo sababtoo wuxuu sameynayaa eeda iyo aska unbuu sameynayaa decoration no buu yidhi kaba dhig baa haddaad underline aad u samaysa doonayso waa kaa uu sameynayaa halkani boqol ka dhig baan odhanaynaa cashirka siduu qoran yahay halkan aad ka bedeli kartaa ba nooca jecesha ka dhigi kartaa qofba wuxuu jecel yahay ayuu ka dhigi karaa sidaa jecesha adigu nooca rabtaa ka dhigi kartaa taasna halkaa weyn letter spacing baa la yidhaha kani oo inta u dhaxaysa leetarada inkanaad gaadhi hadaad in badanna u dhaxayso iyo inaad inay isku soo dhawayso doonayso intaba adiga ayaa ku tala oo sidaa jecesha qofku jecel yahay ayuu ka dhigan karaa taasna halkaa baan kaga gudbaynaa hovering waxa weeyaan kolkaad saa u taabato hadda wuxuu sameynayaa dhaqdhaqaaq animation ayuu sameynayaa xagganaad ka bedelaysaa nooca rabta ka dhigaysaa hadda waa kan waa taabasho kaliya tii horena maxay ahayd shrink baad odhanaysaa dib buu baxayaa haddaa rabti waxaa ka dhigan kartaa plus shrink oo ka gadal baxaya shrink grow wuu soo weynaanayaa taana halkaa baan ku dhaafaynaa text colorka halkaad ka bedelayso waa kani red iga dhig waa ka kolkaan taabto ayuu red noqonayaa inta hore caddaan buu yahay waad arka arkaysaa waa buu yahay background color imiga muxuu yahay kolata green buu yahay inaan bedelo isagana oon ka dhigo blue baan ka dhigayaa baa hadda fiir markaan taabto blue buu noqonayaa black buu noqonayaa madowgaal nooca xiga ayuu noqonayaa colorka si uu isku noqdo bluega u daayo waa ka blue laakiin colorkan hore bal aan bedilo nooc kale ka dhigo iskuma fiicno red baan marka ka dhigayaa red si uu noqdo ayaan ka dhigayaa kaana halkaa baan ka gudbayaa sizeka aad sida aad jeceshahay yaan soo qaadanay haa waa ka sidaa jecesha ka dhigaysaa halkan aad haddaad doonto ku qoraysaa 520 iga dhig manley intaasaan ku dhaafeeyaa normalka italy haddaad doonaysa inaad ka dhigto halkaa baad ka bedelaysaa
family ka baan doortay let space waan doona height-ka inta uu yahay ay isku jiraan kana ka dooranaysaa oo u jiro oo iyaga nafteeda ka bedelaysaa maxaa kale halkani inta xagga sare uu ka xigay iyo inta xagga hoose ka xigay halkana ka bedelaysaa isku soo dhawaashaha kaasi waa topkii bottomkana haddaad tirahdid halkana ka bedelaysaa sidaad jeceshahay halkaabaad ka dhigaysaa si aad u kala goyso sababta halkan aan links baarnay kolka hore isku xidhnaan iminka haddaan bedelo way kala baxayaan oo ninka sabiskiisu u shaqaynayaa kaas 9 baan ka dhiga oo topkii halkana maxaan ka dhiga dhexdaas ay isku leekadaan intaa baan ka dhigayaa taana intaas kolkan taabtana wuxuu noqonayaa blue buu noqonayaa halkan waxaad dhigan kartaa wax cashir haddaad doonto qoraal haddaad doonato soo dhigan kartaa haddaad doonto sawir baad soo dhigan kartaa haddaad inaad qoraal ku qorto doonayso text baad soo qaadi ood halkan dhigaysaa text box haddaad rabto video baad dhigaysaa haddaad rabto inaad yani wax map haddaad dhigto waxa jecesho dhan baad dhigaysaa button haddaad dhigto nooc kastaba bal image baan ku eegayaa image baan soo dhigayaa image kan wuxuu ii ogol yahay oo kaliya uu isiinayaa inuu image-ka aan ku soo qaadan karo meesha laakiin kolkan sii taabto in halkan tago ayaan dooro image dooranaya dhaqankii nii Soomaaliye qaaliga ahaa beriyo hore ayaan kusoo dhigaya halkaan geey bal dhinacanna sidoo kale imika waxa ma samayn karo text banking horta waa inaan geeyo on side ah si aan image soo dhigto haddaan cashirna soo dhigi doonayna waan dooranayaa gabadhan Soomaali hidiya dhaqanka ayaan soo dhigayaa kolka haddii aan update yiraahdo bal han eego marka sida ay noqdeen si degdega oo kaas sawirkii wiilkana dhinaca jira gabadhan kana waa kan isku bedelaya okay edit ku noqonayaa line kan yar baan haddana isku dayaa meesha ku jiraysa bedel lahaa okay line kan aan tagay haddana edit aan leh halka line kan yar way adagta hadda kolkaasaa u taabatid line ka yar taabatid ayuu isna ku siinaya styleka tag laadka maane tagagan may haye hadda waxaan jooga waxa weeyaan kaasaraan jooga laakiin kani baan jecelahay inaan line ka yar taabto wakan line ka yar 8 buu jooga waan yara weyneynayaa waxaan haddaan inaan ka bedelo rabo solid iyo nooca rabtaa ka dhigi kartaa double waa ka dhigi kartaa double line haddaa rabto waa ka dhigi kartaa dotted online line buu noqonayaa sida styleka aad jeceshay kali baad ka dhigaysaa oo saa waad ka dhigan kartaa kali waxaa ka dhigan kartaa kale curve line kale oo isaguna qalqalooco okay sidaa buu noqonayaa waxaa kalood ku dari kartaa iconaad ku dari kartaa si alla siduu qofku jecel yahay ayuu ka dhigi karaa colorka waa ka bedeli kartaa halkan red buu yahay nooc kale ka dhigan kartaa waad weyneyn kartaa aan halkan ku dhaafayaa bal waxaan kusii soconno qaybteena kale see loo dhisaa website amba loo sameeyaa marka waxaan joognaa dashboardkii amba qaybtii laga maamulayay website-kan dhistaankiisa iyo hagaajintiisa in yar haddii aan ku noqono horta halkan taag si aad u tagto website-kii halkan waan tagtay visit site raahid waxaa noo soo baxaya qaybtii aan sameynay waa qaybtii ugu horeysay aan sameynay marka haddaad sidan tiraahid sawirku uu taagan yahay oo ma socdo si aad intaa yaroon iloobayaan inaan ku yiraahdo elementor tag sawirka markaad sidaa u tagto ee joogto halkaas sameynaysaa halkaa dhexda taabo si aad sawirka wax uga bedesho aad u sameyso ka haddana styleka tag waxaa soo baxay sawirkiiba haddana noo soo baxay halkan attachmentka waa sawirkan aan soo attach garaynay ma waxaad rabtaa waa fixed mise waxaad rabtaa inuu la move gareeyo scroll haddaad tiraahid bal aan eegno update kor ku noqo bal waan eegaynaa sida uu noqdo shit kii hore sawirka ma move garayn kanis haddaad u fiirsatid sawirkii baa socda
kolka tii hore waxaan samaynay ahayd sawirku ma uu socon ee meeshiisa ayuu joogay oo ka fixi baan nidhi sawirka footooda dambe ma dhaqaaqayn waxa dhaqaaqayay kolka maxaan nidhi ahayd halkanaan tagnay dhexdaan taabanay waa halka oloweysnaa taabatid styleka tagtid halkan center buu joogaa waad bedeli kartaa koonaa doontaa ka dhigi kartaa laakiin is no good inaad mar left maxay geysid scrollku ka yahay fixidkaan ku daynaynaa update day si aan qaybeyna kale usi kara qaybeyna kale websiteka haddaan sii soconno kusii soconno xaggan eeg xaggan maxaa jira xaggan qayb baa jirta qaybahani haddaad taabato ood sidaan tiraahdo waxaa kuu soo baxaya qoraalkan waad iska tuuri kartaa oo waxaad jeceshay iyo ku bedelan kartaa argeysid halkan qayb baa taalla qaybo badan baa yaala kolka haddaan tiraahdo ood waad tuuri kartaa waad ku dari kartaa noocadood aar haddaan idhaahdo waxaan ku dari karaa qaybo kale bal aan eegna marka kani waxaad samayn dad inaad samayso rabto waad masiixuun kolkaad waa kan halkani wuxuu yidhi website ayaan leenahay halkan kale yacni howda wax badan baan ku qoran kartaa waad ku samayn kartaa laakiin iminka bal hama fiirino soo qabanno website soomaalida ayaan qabanaynaa aan kusoo fara badna ayaan koobiya soo qaadana si aan waxaan waa barasho waxaan ugu talagalnay si aan usoo qaadno kasoo qaadanaya in yar ku daraynaa masalan waxaan rabtay magaca intan yar baa adaba home ku noqo soomaali baan ka hadlaynaa sande covid away halkan tag xagganaad ku shubi kartaa marka websitekii halkan waad ku shubi kartaa waxaad leedahay control v okay halkaaba sawirkii noqday halkanna waxaa ka bedeli kartaa sawirkan waad yareyn kartaa iminka uu weynaaday waxaan samayn karaa heading two ahaa waan ka bedeli paragraph ka dhig si uuna igu weynaan wixii ayaan dhigi karaa xaggan waxaan soo dhigi karaa sawir okay intaad sawirkan hadda hadaad u baahantahay inaad soo qaadato dadka ugu yar ayaa kasoo qaadanaya small downloaded downloaded allowed uuna siiyey desktopka uu ku geeyo okay halkani sawir weyn buu u baahan tahay ma baahnin iska daynaysaa sawirro yaryar baad soo dhigan kartaa oo aad u yaryar xaggani maaliya baan leenahay xagganaa ku bedelayaa warka ha u qaadanina wax kasta siyaasadna inaan loo qaadanin waxaan usoo qaatay waa sambal ahaan baan usoo qaatay si aan meesha usoo dhigay ula socdo sidaas wax kale umaan soo dhigin sawirkii haddaad u baahato sawir kalaan soo dooranaya sawiradii horen haysanay si aan ugu soo daro ayaan ku darayaa sawiradan si aan tuso qaybta kale saasi leeg ugu soo darayaa sawir dheh marka waxaan ku darayaa sawir kale aan sawiradan hayaan ku darayaa wakaas xaggani halkani waxaa paragraph heading baan ka dhigayaa heading 3 ka dhig waka isagana halkan ugu dhaafaya qaybtan aad usoo gudbaysaa qaybtan haddaad rabto completely waa iska delete gareyn kartaa haddaad delete gareyn halka haddaad taabato waa delete this section baad leedahay kow oo waxay oo dhan way ka baxayaan hawada qaybtan kale aad arkaysid
haddaan rabno waa iska daynaynaa oo xaggan waxaan ku bedelan karnaa video baan soo dhigaynaa marka qaybtanaan joognaa marka qaybtani ayaan joognaa oo ah iyadoo hoos kolkaa u degtid qaybtani waan soo qaadaynaa video baan ka dhigaynaa video ayaan ku bedelaynaa qaybtan halkaa video baa jira video si aad usoo qaadato okay videogan aan qaadanaynaa sharekaan tagaynaa waxaan kasoo qaadanaynaa copy waxaan tagaynaa qaybtani ayaan tagaynaa qaybtan aan ku bedelaynaa marka ku bedelaynaa videogeeni waka videogii ayaan ku bedelnay oo halkaa kani baan iska delete garaynaynaa marka kaana sawir baa ku bedelan kartaa laba video baa dhigi kartaa delete kani marka delete kana iska delete garee delete markaas waa ka haddii aad u baahan tahay oo kale haddii aad u baahan tahay oo kale waxaad samaynaysaa kani sidoo kale iska delete garee delete okay maxaa ku soo hadhay halkan video kale haddaa inaad soo dhigata rabto maxaad samaynaysaa oo waxaad samaynaysaa muxuu yahay horta delete videogani okay soo qaada marka videogan waa kaas videoga ayaan haddana halkii ku noqonaynaa waxaan video kale oo Soomaaliya ayaan halka soo qaadanaynaa waxaad tagaysaa share baad tagaysaa copy waxaad samaynaysaa markaa internet copy samaynaysaa kolka copy samayso agaa ku noqo waxaad samaynaysaa halkani ayaad waa delete garaa horta waxaad ku samaynaysaa markaa kii aad soo qaadato ado markaas waka videogu soo baxaya linkiskan seen u samaynaa isaga naftiisa dhowr noocba waad u samayn kartaa meesha aad inaad ku xidha aad doonayso qayb video yaala haddaad samaysato waa sidii oo kale kuma dheeraanayno si degdega aad inaad ku xidha doonayso ayaan ku yara noqonaynaa si degdeg ayaan samaynaynaa waxaan soo aragnay waa kan horta halkaad ku xidhaysa service ma noo soo baxaysaa service baan ku xidhnay hadda halkan kale learn more halkaa tahay service baad ku qoraysaa waa halkan waa iskaga dayn kartaa upcoming event haddii aad wax ku samaynayso waxaad uga baahan tahay qaybtanay gaadhay qaybtan haddaan u baahan completely inaad deeligarayso doonaysa halkan ma taabanaysaa click wuu ka baxay hawada maxaa kuu soo hadhay qaybahan kale ma rabta iyaga nafteeda yes uma baahni haddaad u baahan tahay waad samayn kartaa delete baa leedahay hadda marka waxa ii soo baxay haddii aan inaan qayb kale anu ku darsado doonaya maxaan samaynaya wey halkan imika laba line bay ahayd bal inaan ku darsadaan raba 3 baan ka dhigi karaa 4 baan ka dhigi karaa 4 waka labo copy link text soo qadar text kii diiday text soo darta text de kolka text tagto okay wuxuu ka dhigay title kada titleka paragraph ka dhig caadiya paragraph caadiya ka dhiga next section haddii aan u move garayno oo ah qaybtan haddaan eegno waxaan soo dhamaysanay ilaa videogii ilaa intii aan doonayn marka waxaan homekana links inaan ku samayn karaa home ku xidhay marka hadda waxaan u boodaynaa about iyaan about waa naga arkayna maxaa jira
wax kale kuleyba sida weeginagana sawirkan intan casharada ku qoraysid waa iska fududahay, waxay ku xiran tahay sidaad u bedeli lahayd. Kolkaas saa u joogo waxaan marka tagayaa edit page iyo edit with Elementor bay leeyihiin. Edit markaan tago kani haddaan u baahdo halkan aan ka bedelaa who we are color haddaad u baahan tahay waa bedeli kartaa oo waxaa ka dhigi kartaa colorka imika waa white, red baa ka dhigi kartaa wadiga arkaya. Waxaa kaloo ka dhigi kartaa blue iskuma fiicnaanayaan, black iskuma fiicnaanayaan, white ayuu ku qurux badan yahay. Halkaad bedeli kartaa. Waxaa kalood ka dhigi kartaa haddii aad inaad bedesho doonayso qoraalka wuu u qoran yahay, xarfo u qoran yihiin baan tagnaa. Taaba marka nooca rabtaa ka dhigi kartaa, maxaa jeceshahay waa ka isbedeli. waan soo marnay waxaan waqti inaan ka ridin. Size-ka haddaad doonayso inaad ka dhigto waa bedeleysaa. waxaa kaloo halkan soo baxay, halkaa maxaa ku qoran desktop. halkii waxbaa naga qarsoomay, waxaa naga qarsoomay qoraalkii meesha. weigtka waa sida uu weyn yahay u balaartan aad arkaysid weeyaan. 900 ka dhig bal. waa kaas typography-ga 400 waa ka isbedelaya. haddii aan ka dhigo 500 wuu yaro weynaanaya, 800 wuu yaro weynaanaya. yacni waa si uu qonanayo waan soo aragnaa u malaynayaa. kani waxa weeyaan cashirka haddaad ka dhigaysa waa weyneynaysa, haddaa yareynaysa, haddaa xarfa horeysa samaynaysa waan soo aragnay. kuma labinay styleka aad doonaysa waan soo aragnay. decorationka waan soo aragnay. iyagana halkaan ku dhaafina line letter xarfaha spaceka inta u dhexaysa waan soo aragnay. iyagana halkaan baan ku dhaafaynaa, waxaan kusii socona ma lihin. marka waxaan u wacanaynaa sawirkan ayaan ku noqona. marka halkaan baan leenahay sawirka haddii aan idhaahdo waa ka waan masaxaya. marka sawirka delete baan lehay, muxuu noqday blank buu noqday midow. laakiin waxaan samaysan karaa, waxaan ka dhigan karaa color ambo background color ayaan samaysan karaa. markaa guduud madow noqday. saa jeceshahay ka dhigi kartaa, green baa ka dhigi kartaa, green yaro fudud baa ka dhigi kartaa. haddaa rabto waa yara samaynaysaa green madow nooca jeceshahay. saadhe meesha wakaad abay ku tahay ku joogsanaysaa. kani soo qaad, waa kaa nooca rabtaa ka dhigi kartaa, uma baahnid. waxaan kaloo yareyn karnaa kani naftiisa ayaan dib u yareynaynaa. iminka topka wuxuu u jiraa 200 waan soo aragnay, waan dhaweynaynaa si aan u yareynaa rabnaa. sawir weyn iyo wixii uma baahnin ayaan samaynaynaa, waan u dhaweynaynaa wuu yaa. xagga bottomka amba qaybta hoose waxaan ka dhigaynaa iyaga naftooda waan soo yareynaynaa. wuu yaa uma baahnayn sawir weyn oo culus uma baahnin. saamaan leenahay balan fiirina markaas uu noqonayo. abdayde waa kaasi aadaan fiirinana. alright iniga arkaya waan yareynay. who we are waan soo yareynay. editkaan ku noqonaynaa. marka maxaan samayn karno, qaybtani haddaad doonayso inaad wax ka bedisho qaybtan kale sawirkan kale iyada sidaad uga bedeli lahayd waan soo aragnay. halkan baad taabanaysaa, sawirka la geenaysaa. qaybtan awamishanka saad jeceshaa u dhigi kartaa. waxaa ku dari kartaa media, waxaa ku dartaa form. bal iyada nafteeda halkan taaba waa sectionno amba qaybo weeyaan. qaybtan haddaan taabto in badan baa u dhaxaysa halkan. si aan u bedelaynahayd waanagii soo aragnay. waxaa la samaynaa baadinkaan samaynanaa
waa spaceyada xagga sare inuu u dhawaadaan rabnaa. Waxaan soo yareeraynayna wixii space badan iyo wax nooga khasaarin ayaan hadda kusoo koobaynaa. Okay, saasaan kusoo koobnay. Hoos baa u degaynaa. Hoos space badan baa jira. Spaceka badan oo 90 buu iyadana yaree u soo dhaweey. Okay, intaa ku daa isaga qaybaan kalaa jira, qaybaan kala iyadna sidan dheh. Si aad saa u tira hoos u deg marka maxaad samayn kartaa iyadana saa ku dhaaf. Waxaan si loo bedelo aan sheegay waxaad samaynaysaa halkan intanaad masiix wax cusub baad ku darsanaysaa. Kani kala kani sidoo kale kani waa adigan arkaya wuxuu leeyahay sidaan ii muuqata waxaan waqti ku dilno maaha. Okay, update sawir haddaan soo qaadano bal sawiro kalaan ka soo qaadanaynaa Google. Marka waxaan ku sii soconaynaa waxaan service baan soo marnay project baan samaynaynaa. Project sidaad arkaysiin waxaa qaybtan oo blue background holiday iyo qaybahan kale oo iyaguna combine campaign-ka ah. Waxaan leenahay marka edit element oo ahayd template-kan ku shubnay. Marka halkaan joogno qaybtan aan ka bilaabaynaa background-kiina bedel hadaan rabno. Sidaan soo sheegay art waa ku dar section kale hadda ku sii darayso. Qaybtani waa edit section oo edit garaynaysa section kan kani waa delete garay. Waxaan tagaynaa edit section ambo right click edit section intaba waad samayn kartaa. waxaa kaloo samayn kartaa halkan duplicate hadaan idhaa bal haddaan sameeyo waa ka laba qaybood bii sameeyey oo qayb laba qaybood isku eg buu sameeyey iska kala dhigan karto kolka ma iska delete garayn kani kii hore aan ku joogayaa edit section baan idhi waxaan tagayaa background kan sidan horta u bedelo add photo baan kusoo darsanaynaa marka tuushiina Africa ayaan ku daraynaa okay xeebta Djibouti ee milixda ayaan kusoo daraynaa markaas update kolkaan sameeyo ku noqdo qaybtan aan ku noqdo update okay update aan leeyahay waxaan taabanaya project waxaan bedelay backgroundkii bluega ahaa tii hore muxuu ahaa blue buu ahaa waa kan hadda waxaan ka dhigay picture baan ka dhigay waxaan kaloo samayn karaa haddaan ku noqdo uu weyn yahay sidaad arkaysiin in badan si aan u yareeyo nafteyda taabo advance kan kala garaynaya halka waxaa ku jirta 200 waa xagga qaybta bottonka ka hooseysa oo project 150 baan ka dhigayaa si wax weyn u noqon qaybtan kale sorry topka ahayd kaasi qaybta bottomka ee qaybtana korka uu soo hagaajiyay 150 ayaan ka dhigay iyadna 100 baa haddaan ka dhigo saabuu noqonayaa update markaan sameeyo waxaa soo baxaya update refresh weyn taasi u noqday qaybtaaba kusoo okay intaa wuxuu isku jiraa iyo inta okay halkaas aan ku noqonaynaa waxaan kaloo sameynaynaa halkani waa photo slide weyn hadda inaad wax ku qorto doonayso leedahay welcome to Africa ama Soomaaliya aan leeyahay qaybtan already explore Africa whole day and discover the best time and place to visit like Somalia East Africa waqti
okay waa kaas. Halkani waa haddii links aad ku soo darayso weyn, add form aad leedahay, add media cod haddii aad ku daraysa iyo photo amba picture. Okay, qaybtani markaan u imano sida arkaysidba kolkaan click ka siiyo amba aan taabto any imika halkaa baan joogaa, halkaa baan weydiina, halkaa baan joogaa, sorry. Kolkaan taabto wuxuu any sawir amba photo aan taabto waxay soo baxaya select image-ka aan u baahana. Marka waxaan sameynaynaa qaybta waxaan ka bedelay background-kii. qaybtan waxaan sameynaa halkan aad tagaysaa, kolkaad taabatid sawirada aad doonaysa inaad halkaa ku shubato ayaad ku shubaysaa, qaybka aad doonaysidna waa ka saaran kartaa. Masalan kanaan ka tuuraynaa, kan waa iska daynaa, sawiradeennan ayaan ku daynaa, kana ka tuur. Okay, haddii aad u fiirsato waa kan sawiradii soo baxaya. update markaan waxaan tagaynaa halkana refresh baan taabanaynaa, dib u cusboonaysiin sababtoo waxbaan ka bedelay. Marka sii socoto waa dhulkeenii Soomaaliya ayaan ka dhigay ku noqonaynaa. kolka bacdama our project aan welcome to Somalia, xaggan waxaan saan hore usoo sheegay waan iska masaxaynaa, waan iska tuuraynaa, sawirada halkaa kale gudaynaa. Okay, sabaad tuuraysaa. Marka halka maxaan samayn karnaa? Waxaan samayn karnaa haddaan horta halkan idhaahdo advanced-taabo bottom-ka 9 baan nidhi. Okay, saan ku dhaafaynaa zero update. Okay, qaybtani intii sawiradii haddaan hadda taabto waxaan soo baxaya refresh haddana again si ay cusboonaysiisano. Marka maran tahay ma maran, waxaan sameynaynaa marka tani waa ku daraysaa hadaad u jeceshahay, waxaad taabanaysaa kaa jeceshay, ma hal line barabtaa ma laba line barabtaa, alla indaad tiraahid waa kasoo soo baxay. waad ballaarsan kartaa, waada ballaarinay miyuunbe. kani waa haddii aad haysato soo download template kale aad soo download garaysa. Marka kani baan tagaynaa, kani markaan tagno waxaa noo soo baxaya page, hadaad page inaad create doonayso iyo haddii kale blog baan tagaynaa. Marka blogna muxuu yahay? blog markaad tagto waa kan waxaan oo dhan waa free-ga. haddaad rabtay free taabo waxaan ugu dhayn Soomaali may team ii taabo, team baan taabanaya, teamkii project ka shaqeynaya baan doonayaa inaan keeno. team waa kani waad taabanaysa, waad eegaysaa sidaan u eegaya call action teamkii waxay yihiin waad tusaminaysaa. haddaa kaa taabatid ku noqo, kaas waa mid kastaba saa u taaban. kani muxuu yahay? wuxuu noqonayaa teamka waa ka ku noqo midkaa jecesha. markuu ku cajabiyo meet the team, uu ku cajabiyo ayaad taabanaysaa. kani baa isaguna jira, waan wada eegaynaa horta intaanan qaraar qaadan waan wada eegaynaa. kani suu noqonayaa sabab noqonayaa ka ku cajabid marka qaadanaysa. kani kale sabab noqonayaa mana arag, sorry kani ma soo aragnay, kan doonay kani maahay, waa kan kani maan arag. kani sabab noqonayaa waa madow, background-ku black. kani kalaa jira ani i cajabiyey, waad dooran karto. kani baa jira, sidaad u samaysanayso intaaba baad samayn kartaa. kii hore haddaad jeclayd kan waa 6 4 aan rabaa inaan okay. kani ayaa isaguna jira, teamka aad doonaysid meet the team. insert baad leedahay, marka import baad leedahay, sorry blog waxaan soo baxnayna marka. okay, waa kan marka teamkii waa kan soo baxay. suu noqonayaa update horta
update markaad tiraahid waxaan ku noqonaynaa productii hadda muxuu yahay laakiin refresh markaad tiraahid baan eegaynaa sababta waxbaan kusoo daran okay kolka isaga teamka naftiisa aan bedelaynaa oo isku daynaa inaan bedelo amba wax ka samayno okay background daarabta waxaa ka dhigaya isku eegaynaa sawir bal inaan gelino sida uu ku noqdo okay sawir ayaan dhigaynaa waynu yaro madoobaada sawirku intoodan gelinay maka calankii uu ku batay ma fiicnaa kaasi sababana doonaynaa shay keliya ku ballaadha background okay kani waa bedeli kartaa kani waad bedeli kartaa walka waa ka kani ardayde isugu soo baxayna eegaynaa marka kaas sawir baan gelinay photo baan gelinay saa buu noqonayaa okay ku noqonaynaa hadda markani waa inaad kanoo kale wuxuu u baahan yahay inaad bedesho colorka because sababta waa madow backgroundkii baa yara madow inaad u bedesho u baahan yahay inaad bedesho ayay typographiga tagaysaa teamkii okay qaybtaan ku dhaafayna transparencyga rabay capitalize team inaan ka dhigo okay text color baan tagaynaa marka waxaan ka dhignaa white ka dhig kaas white color ka dhigto wuxuu noqonayaa sorry title ku sii noqo colorka miiskada waxaan ka bedeliba okay update baan sameynaynaa si aan u eegno refresh isagoo soo baxayna eegnaa okay media team waad yarayn kartaa waana weyneyn kartaa okay qaybtan aan tagaynaa haddana qaybtan markaan tagno stylekaan tagaynaa textka bedelaynaa horta text haddaan ka dhig haddaan ka dhigay haddana waxaan ka noqonayaa content ka tagayaa waxaan ku shasha ku qoray please contact our team okay marka saa joogtid styleka inuu noqo typographiga tagaynaa waan yaro weyneynna okay kani naftiisa okay kamaan abdil leenahay kuwana hadhay kani maxaad samaynaysaa sawirka halkan aad ka bedelaysaa tuurkani sawirkan aan kusoo darsanaynaa dadka lala soo xiriirayaa ayaan leenahay maalan inserde okay magaca waad bedelaysaa oo waxaad ka bedelaysaa sorry content tagtid magaca ka bedel hasha magac Soomaaliya iskala baxaynaa leenahay agaasime awna iska dah anigala magacaan bedelayna markaan magaca bedelno okay horta photoda bedelno photodan kusoo dar photo kalaan kusoo daraynaa maalan wixii inaan aragnaa photoda suu bedeliyo magacaan bedelaynaa waxaan leenahay okay geedi waa magacii hore Soomaaliya la bixi jiray kani sidaas leeg
sawirkan tuuraynaa, sawirkan kusoo darsanaynaa, gabadhan kusoo daraynaa, magac sidaad bedelaysid waa iska fududahay. Anbaro magac Soomaali waxaan raadin isku dayayo, raalli ahaada, kulley baan isku dayayaa magaca Soomaaliya inaan helo, ku bedelayaa. Okay, waa ka magacaygaan bedelayaa. qad uru male. Okay, kula wuxuu yahay taana intaas ay noqonaysaa. Update ma sameynayaa. Teamkii xakan waa lagu dari karaa yahay oo kani intood qaad iyo dalka geyn kartaa. Se action kan tagna marka action kulka tagtid action for please call to action battery links ka tu sameynaysaa. halkan links baad sameynaysaa dad jeceshay waxaad ku dhigtaa about kulka tagtid my contactiga qofka tagaysaa. contact u leedahay. Okay, contact markaan taabano iska isbedele iconka bedeli kartaa nooca small size u data default type. Okay, tawa green way red ku default u dah. Okay, update baan leenahay. inka waxaan tagaynaa refresh waxay isku bedeli someone okay. Call action that right waxa uu la xiriiray dadkani qofkii waxa kaloo saameyn kartaa in halkan waxa ku qor kartaa qofka sida telefonkiisa ku qor kartaa please call to sha 22110099 baalanaysa sidoo kale halka aad ku qortid wixii iska noqonaya. Okay, intaan halkaa ka gudbin markaas iyada halkaan ku dhaafaynaa update that shahid oo tagtid project sumayn waa kan project tagtid akas teamkii beesh qurux badan ayaa ka soo baxay oo socda darkiisii. marka waxaan wax yar jeclaa inaan ku noqdo qaybtan oon iloobayna wax naga tuso iyo iloobay. marka aad soo dhamaysato waxaa jirta qaybtan halkan maxaa ku jira wax weeyaan click baad sameynaysaa. hadda wuxuu sameynaya waa desktop laakiin si ay dadku u harsan mobile baan ku eegaynaa. Okay, suu noqday mobilekii marka waa weynaaday sooma suu ahaa markuu ahaa desktopka sidaa buu ahaa. haddii aad doonaysa inaad ka dhigto mobilka waa leegeysiin kartaa. xaggana tagaysaa styleka ood yaraynaysaa ood tagaysaa style kaa tagtid hgana ka yahay waad yarayn kartaa sizeka waa medium ka dhig small ka dhig. Okay, alright, xagga hadduu iga diiday waxaan ka tagaynaa xaggan kale qaybta hadduu iga diiday si aan u yareeyo halkan sizeka ayaan tagayaa. Okay, waa kaa sidii uu website-ka weekaa hadda wuxuu akhrinayaa waa mobile. kani sidaas ilaa waan sameynayaa. qaybta hadduu ka diido waxaad tagaysaa typographiga waxaad tagaysaa sidii uu u akhrin karo web oo mobileka qofku
okay taana saaba samayn kartaa sawiradii waa kuwa mobilka tagtay waa kuwa iska soo baxay wixii kaa weynaado oo dhan waad yarayn kartaa ka perfect buu kusoo baxaya marka mobile waa kani haddii aan tago waxba iskama bedelaya sidiisii hore xaggani sidii buu ahaanayaa the only qof kolkuu mobile isticmaalayo ayuu isbedelayaa laakiin isma bedelayo desktopkii computerkii caadigii waxa loogu talagalay waa mobilka weeyaan iyadna update baan leeyahay tablet haddaad tagtid sidoo kale waa kan waad samayn kartaa iyada nafteeda inaad tagaysaa topographiga tagaysaa si aad u leekaysiisaan ka wadaa sida ugu noqdo isku mid noqdo okay oka qaybtanna sidaas leeg umaan samaynaa okay qofka mobilka akrinaya siduu u akrin karo waa kaas una waxba iska bedelo ka mobilka waxyaabihi oo dhan update baad leedahay iyadana hadda muxuu sheegayaa tablet buu sheegayaa kiin wixii kale desktop haddaan tago iska caadigiisii waanay wax iska bedelaya ma jiro kani waxaan igu tusaya markii aan lahaa inaad u ogaatiin laakiin waad bedeli kartiin oo qofku nooca uu rabo ayuu ka dhigi karaa iyada nafteeda edit divider kan colorkii reerkiisa iskaga dah font dheh colorkeeda waxaan bedelay wixii waan u socday waan linkaan bedelay okay solid line okay kana sidaan ku bedelaynaa waxaan ka saaraynaa linekii kani kale haguu kayn marka halkan kali saaristi update baan leena marka okay ku cusub baan furaynaa okaas noqday sidka alright backgroundka picture-ku calanka ma dhaqaaqayo waxaa dhaqaaqayaan cashirka sare hore baan soo sheegay project tag bal inuu ku xidhan yahay waxay ku caddaynaysaa inuu shaqaynayo project ku xidhan waa kii website-kan samaynay halkaas waxaan tagaynaa marka menigana noo hadhay amba take actionka ayaan marka galaynaa si aan u hagaajin lahayn insha allah okay menigaan tagaynaa horta ku noqo waxaan tagaynaa customers ayaan tagaynaa si aan u bedelo meniga ayaan u soconnaa hadda waxaan u soconnaa bedelayna waa meniga header meniga waxaan soo aragnay kale waxaan kusoo aragnay hayd futureka okay menigaan tagaynaa halkaa waa kan menigi waxaan joognaa haddaad wax ku darayso haddaad kala saraysiinayso waad qaadaysaa mid kastaba sidaa jecesha oo ka dhigaysaa meniga horta taas iyada inaad sa ogato okay waa kan waxaan joognaa marka buttonkan si aan uga shaqaynayn okay mid baan iloobay aan ku noqda kani contact project service okay sax wey marka kani waxaan rabaa inaan ka dhigo first contact inaan ka dhigo okay alright page-kan tago update samee markaa okay isku bedelay contact laba contact baan haysanaa marka kani amba iska deligelin kartaa kani amba kana ku bedeli kartaa oo ka dhigi kartaa tii baan samaynaa marka haddii aan rabno inaan ku bedelno waxaan samaynaynaa contactigan ku xidhayno contact publish marta okay ku noqo markalkii update si uu wixii u shaqeeyo markasta waa in update samaysid
كنا كتوزن اوكي كونتاكت اوكي وكا ونوشقي قيبتي كونتاكتي ونا كيني ان كون ina soo aragnaa malayn ismini alright waxaan ku noqonaynaa marka waa kan customer halkan joogay contact baan joognaa marka labadan contact maxaan yeelaa maadaama kani mid waa in iska delete garan kani haddaad rabto waa delete garan kartaa haddana hide last item waxaad taaban kartaa waad ka tuuri kartaa maxaan tagaynaa marka labada contact ayaan mid tuuraynaa marka delete remove this one okay publish gray go publish gray kuna update okay waka project contact okay waan iska turnay kii hadda waxaan joognaa kuwan waxaan sameynay red baan sameynay kaas waxaan u malaynaya halkaas wixii aan iloobay moogiye badi wixii loo baahnaa maniga soo dhamaystiray laakiin kulley waxaan noogu xigi doonaa qaybo kale ayaan samayn doonaa bakas amba sida ay u baahan dadku ayay ku xidhan tahay laakiin waxaan iga codsanayaa inaad noo sheer garaysiin haddii aan mar halkan ku noqdo kuwan test baan igu tusay laakiin waan iska tuuri karnaa uma baahni kana uma baahni waan ka tuuri karnaa okay update markasta waan update samaysid may waxbaan iloobay kani waa inaan ka tuurto iyada nafteeda okay kana delete update ka duulay raxmaan website-kii oo complete halkaas ayuu noogu dhan yahay oo laga soo bilaabo ilagii videogii linkskii sida loogu soo xidhayay waa ka uu noo dhan yahay abaad shaqaynaysaa waxaan soo aragnoo dhan waa kuwa huwi waa ka qaybaas kale loo bedelayo contact aan soo aragnay kaad intaas waxaan iloobay horta dashboardka tag dashboardkaan joognaa waxaan iloobaan isleeyahay appearance ka team customize ka tag inaan sameeyey meelahan maraya okay it's okay with kani setting ka tag haddana setting markaan tagta ma sameeyey kani waa dateki waan sameeyey waa dhan yahay okay dateki waa dhan yahay writingka kani waa meel serverka haddaad doonaysa inaad ku qorato ood leedahay waad iskaga qoranaysaa journal readingkaan eegaynaa waxaa ka iloobay okay imise poste 10 blog static page waan sameeyey home page waan ka dhigay okay discussion kuwani wax aad uga baahan tahay ma jiro premier link waxa weeyaan iyagu halkan kulka xidhiidhsan yihiin dan website-da qaar ku tagtid waxaa jirta date and name waxaana soo baxay post name marka waxaan iyo numberka datekii maalintii laakiin ta ugu roon aan isleeyahay waa date post inaad tiraahdo taas ugu roon marka waxaad leedahay wuxuu sameynayaa masalan tabar24.com and then post kulka aad halkan joogto halkani markaad joogto waa inuu soo qoraa okay home about okay waka about buu soo qoraya marka markaa saa u taabat dii in kusoo qori lahaa okay kani keyboardkan joogo premier link soo joogay saved horta si wax loo sameyn markuu noqo
okay, service deh, okay, okay, service baa ku xigay kaas home that right ombudka okay, halkaas ayuu noogu dhan yahay cashirkeenii. Please walaalaha waxaan jeclaan lahaa balse waxaani usii socdo inaad noo sheergaraysiin su-aalahana commonana waad noo sameyn. commonku wuxuu hagaajinayaa amba tuusinayaa sida aad wixii iga khaldamay si aan u toosiyo iyo wixii aan ka tegay si aan dib u soo dhigo insha allah. waan islaamay dhammaan bulshada Soomaalida iyo kuwa af Soomaaliga ku hadlayntiin dhammaantiinba ee daawanay doona cashirkan aan kusoo gudbinay how to build website or how to make website, see loo sameeyaa website, see loo dhisaa website. markaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.